بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. waxaan noo socotay koorso aan uga hadlaynay sida daatada loo maareeyo loona analyze gareeyo anagoo isticmaalayna statistical software-ka loo yaqaano stata. waxaan qaadan doonaa casharkeenii labaad. casharka labaad waxyaabaha aan uga hadli doono waxaa ka mid ah number 1 waxyaabo muhiim ah oo qofka statada baranaya laga rabo inuu yaqaano. sidoo kale waxaan ku baran doonaa operatorska loo isticmaalo statada, noocyada ay variablesku u kala baxaan iyo mid kasta nooca keydiskiisa marka la joogo stata, iyo commandiska statada waxyaabaha ay ka kooban yihiin. qaybta ugu horeysa haddaan bilaawno waxaa jira waxyaabo muhiim ah oo qofka statada baranayo ay tahay inuu yaqaano ka hor intuusan stata si fiican usii dhexgelin. waxyaabahaas inta ugu badan waxaan uga hadli doonaa commandiska, maadaama inta ugu badan koorsadan aan xooga ku saari doono markii daatada aan manage garaynayno ama aan analyze garaynayno. inta ugu badan waxaan isticmaali doonaa waxa loo yaqaano commandiska. so talooyin badan oo ku saabsan commandiska ayaan meesha ku bixi doonaa. number 1 horta command maxaa loo yaqaanaa? command waxaa waaye erayo muhiim ah ama asaasi ah kuwa oo ku kaydsan memoryga statada ku kaydsan ama maskaxda statada ku kaydsan oo loo isticmaalo in qofku natiijada uu rabo uu ku helo. yani natiijo kasta oo aad rabtid waxaa jiro command u gaar ah kaas oo loogu talagalay in natiijadaas lagu helo. sidoo kale dhammaan command nameska commandka markaa qoraysid waa inaad ku qortid small letter, waa inaad ku qortid commandka ka aqbalayo inaad capital letter ka bilowdid ama aad capital letter ku qortid. waxyaabaha kaloo muhiimka waxaa ka mid ah in erayooyinka syntax iyo command ay yihiin laba eray oo isku macno ah, kuwaas oo mid kastaba booskiisa kale loo isticmaali karo. sidoo kale markii aan stata variable name ku qorayno, variable namekaas waa inuusan u dhaxaynin space, waa inuusan u dhaxaynin haddii yani tusaale ahaan variableka uu ka kooban yahay laba xaraf hadduu ka kooban yahay ama laba eray hadduu ka kooban yahay, sorry laba eray aan dhahno, hadduu laba eray ka kooban yahay labadaas eray waa inuusan space u dhaxaynin. sidoo kale variable nameka waa inuusan ka bilaabanin number, waa inuusan ka bilaabanin. variable nameka waa inaa hubisaa inuu ka bilowday shay waxa loo yaqaano letter inuu ka bilowday instead of number uu ka bilaabo lahaa. waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah sidoo kale oo qofka statada baranaya ama commandska statada ku qoraya inuu ogaado waxaa ka mid ah in stata commandsku ay yihiin case sensitive inay yihiin. case sensitive waxaa loola jeedaa error result ayuu kuusoo saarayaa haddii statada wax yar commandskeeda haddaa wax yar ka qaladid ama hal xaraf aad ka qaladid, ama tusaale ahaan hadda waxyaabaan soo sheegna waxa ka mid ah inaa capital letter tusaale ahaan lagu qori karo. haddaa capital letter oo kale ku qortid ama wax yar aad ka qaladid, natiijada kuusoo saaraya waxay noqon doontaa natiijo oo error ah ayay noqon doontaa. waxyaabaha sidoo kale muhiimka waxaa ka mid ah maadaama commandska waxyaabaha aan u dooranayno ay ka mid tahay inay stepskii tirada bannaa oo la mari lahaa inay noo fududeyso, sidoo kale commandska waa lasoo gaabin karaa. si aad u ogaatid marka commandska lasoo gaabin karo, isla command ayaa isticmaali doontaa loo yaqaano help, kadibna command nooci aad rabtay ayaa qori doontaa. markaas ayuu wuxuu kuusoo saari doonaa underlined word qaybta aad rabtay inta qayb ayuu kaaga samayn doonaa, hoosta ayuu kaaga xariiqi doonaa. intaas oo hoosta kaaga xariiqay ayaana noqon doonta qaybta lasoo abbreviate garaynayo ama qaybta lasoo gaabinayo. marka qaybtaas waa arki doonaa insha allah. tusaale ahaan command ayaan ku tijaabi doonaa, kadibna waxaan arki doonaa qaybta laga soo gaabinayo ama loo soo abbreviate garaynayo. qaybta labaad waxaan uga hadli doonaa ama ajendaheena labaad wuxuu ahaa inaan barano operatorska statadu ay taqaano ama loo isticmaalo. statada operatorska ay taqaano waxaa ka mid ah wax loo yaqaano arithmetic operators oo ah plus signka ama isku darka iyo minus oo kala jarka ah, iyo calaamadan loo yaqaano asterisk oo loo isticmaalo ku dhufashada, calaamadan kale oo slashka ah oo loo isticmaalo wax loo yaqaano qaybinta ama isu qaybinta, iyo midaan kale oo raiska oo powerka ah. sidoo kale waxa loo yaqaano logical operators ayay statadu isticmaashaa oo sidaan u jeedno ah exclamation mark ama sidoo kale qaabkaas kale loo qorin karo
nilda loo yaqaano saas kale loo qori karo calaamadan kale orta loo qoro ama vertical barka ah iyo anta oo aad taqaanin operatorska nooca kale oo istatada loo isticmaalo ama loo isticmaali karo waxaa kamid ah rational operatorska oo ah equal, greater than, less than, greater than or equal, less than or equal waxyaabahaas sidoo kale rational operatorska loo yaqaano sidoo kale waa loo isticmaalo operatorska istatada loo isticmaalo ayay kamid tahay so haddaa ujeediin equal signka laba equal ayay istatada inta ugu badan ama operationka loo isticmaalo ayay tahay laakiin sidoo kale qaybta hoose haddaa fiirisiin hal equal ayaa sidoo kale istatada u taqaana hal equalkaas marka la qoraayo waa special operator gaar ah oo loo isticmaalo markii aad rabtid inaad variable cusub abuurtid ama se variable horoo jiray aad rabtid inaad wax ka bedeshid meelaha marka halka equal inta ugu badan loo isticmaalo waxaa loo isticmaalaa inta ugu badan markii la qoro commentskan soo socdo commentskan gen egen ama replace haddii kuwan mid kamid ah qortid kadib hal equal waa isticmaali kartaa marka cases la xiriira halkaas equal marka la isticmaalayo iyo sida loo apply gareeyo insha Allah waxaan ku tadbiiqi doonaa casharadeena soo socda ku tadbiiqi doonaa stata markaan joogno marka waxaan u isticmaali karnaa statada waxaan isticmaali karnaa using command window as a calculator statada waxaan isticmaali karnaa ama command window ayaa waxaan isticmaali karnaa sida calculatorka caadiga aan naqaano camal ay isticmaali karnaa si marka scalar value qiimo hal single value ah si aan usoo saarno command window aan uga soo saarno waxaan isticmaali doonaa command loo yaqaano display ayaa isticmaali doonaa marka scalar muxuu yahay marka scalar inta ugu badan waan naqaanaa scalar iyo vector iyo matrix waxyaabahaas almost waxaan rajeynaa waa terminology oo famous ama caan ah oo inta ugu badan la yaqaano dadka academicians ay yaqaanin marka scalar waxaa loo yaqaanaa ama wuxuu taagan tahay mostly waxaa loo isticmaalaa single value hal qiimo inaad kusoo saartid ama se variable hal variable oo leh dhowr qiimo ama dhowr tiro ay hoos imaadaan oo kale kaasna waxaa loo yaqaanaa scalar tusaale ahaan haddii aan dhahno 5 plus iisoo saar 5 lagu daray 7 waxaa soo baxaysa 12 so 12 maxaa waaye just a single value gaas oo kale wuxuu noqon karaa scalar marka si aan usoo saarno waxaa la isticmaalaa display commandka waxaa loo soo gaabi karaa this ama di si aan usoo sheegnay qaybtii hore aan kusoo sheegnay waxaan dhahnay commandiska statada waa lasoo gaabin karaa kuwa qaar waa lasoo gaabin karaa marka statada ama wax loo yaqaano display commandka waxaa loo isticmaali karaa booskii hand calculationka aad samay lahayd intii adiga gacantaada iskula dari lahayd ama qalin iyo warqad aad qaadato wax isku dari lahayd xisaab ama kala jari lahayd ama isku dhufa lahayd ama isu qaybi lahayd waxaa isticmaali kartaa wax loo yaqaano commandiga display loo yaqaano ayaa isticmaali kartaa tusaalayaal marka anagoo isticmaalayna wax loo yaqaano display command aan meeshaan ku fiirino tusaale ahaan haddaa stata command aad ku qortid display 5 plus 7 waxaa kusoo bixaysa result ah 12 haddii aad ku qortid display 15 oo laga jaro 7 wuxuu kusoo saari doonaa natiijo ah 8 haddii aad ku dhufatid di dabcan this iyo di iyo display same result ayuu noo soo wada saari doonaa sababtoo ah just di iyo this erayadan waa erayo oo abbreviation u ah display u ah waay haddii aan fiirino display 42 loo qaybiyo 6 wuxuu noo soo saari doonaa 7 sidoo kale kan ugu dambeeya oo ah 5 to the power 3 wuxuu noo soo saari doonaa 125 marka si aan isula soconno oo casharkana si fiican ugu fahmno dhammaanteen aan stata soo wada furanno si aan isula practice gareyno waxyaabihii muhiimka ahaa oo aan casharka aan ku dhex sheegnay waxyaabihii ugu horreeyay ama shayga ugu horreeyay oo practicingka u baahnaa casharka ku dhex sheegno waxaa kamid ahaa qaybta important tipska markaan sharxaynay in stata commandiska lasoo gaabin karo ama abbreviation lagu samayn karo iyadoo la isticmaalayo commandiga loo yaqaano help command marka maadaama casharkeena maanta commandiga aan u isticmaali doono uu yahay display command waxaan isla fiiri doonaa ereyga display inta loo soo gaabin karo maadaama display uu xaraf uu erey dheer yahay oo aanan wada qori karin ama wada qori karnaa dabcan laakiin aan rabno inaan soo gaabino waxaan rabnaa inaan baranno horta
display meeqa xaraf aa loo soo gaabin karaa. So si aan u ogaano waxaan leenahay help display ayaa qaybta command windowga wax ku qoraynaa help display. kadibna enter ayaan dhahaynaa. kadibna waxaa noo soo bixi doontaa natiijadan ayaa noo soo bixi doonta. So annaga waxyaabahan oo dhan natiijada noo soo baxdo waxyaabahan tirada badan oo dhan muhiim nooma ahan. keliya waxaa noo muhiim ah inaan fiirino qaybtan ay ku qoran tahay display. display marka haddii aad fiirisiin waxaa hoosta ka xariiqan keliya d iyo I ayaa hoosta ka xariiqan haddaad fiirisiin. So sida hore usoo sheegnana waxaan dhahnay waxaan qaadanaynaa ama waxaa ereyga waxaa loo soo gaabi karaa keliya qaybta hoosta ka xariiqan ayaa loo soo gaabi karaa. So display waxaan usoo gaabi karnaa d I ayaan usoo gaabi karnaa display. sidoo kale waxaan sheegnay in statada loo isticmaali karo as a calculator ama calculator ahaan loo isticmaali karo annagoo isticmaalayna commandiga loo yaqaano display. So aan isla fiirino exampleskeena. exampleka koowaad wuxuu ahaa 5 lagu daray 7 I think saas inuu ahaa rajeynaa. So 5 dabcan display markaa qortid space ayaa bixi doontaa kadibna 5 lagu daray 7 ayaa qori doontaa. haddaad fiirisiin 5 lagu daray 7 natiijadii 12 ah oo loo baahnaa ayuu noo soo saaray. exampleka labaad wuxuu ahaa 15 laga jaray 7. So waxaan leenahay di maadaama aan soo baranay in display loo soo gaabin karo di markaan waxaan qori doonaa di 15 oo laga jaray 7. haddaad fiirisiin 8 ayuu noo soo saaray qaybta result windowga. qaybtan dabcan qaybta hore usoo sharxna waa meesha resultska natiijada aan rabno meesha inaga soo baxdo waay. exampleka saddexaad isla fiirino 5 lagu dhuftay 7 ayuu ahaa. So waxaan leenahay di 5 lagu dhuftay 7 sorry 5 lagu dhuftay 7. exampleka afraad wuxuu ahaa 42 loo qaybiyey 6. So waxaan leenahay di 42 oo loo qaybiyey 6. exampleka ugu dambeeya shanaadna wuxuu ahaa 5 power 3. So waxaan leenahay di 5 to the power 3. So haddaan fiirino stata waxaan u isticmaali karnaa as a calculator ayaan isticmaali karnaa. dhammaan exampleskeenii 5tii example oo aan ku fiirinaynana saan ayaan isula practice garaynay. casharkeena labaad qaybtiisa koowaad halkan ayaan ku keenaynaa si aanan uga caajisin. labada topic ee noo hartay oo ah variables in stata iyo stata commands casharka soo socda ayaan ku sharxi doonaa insha Allah.